waxaa jiri jiray nin la dhaho Kaltuum oo ahaa nin Ilaahay maskax iyo caqli ugu deeqay. Wuxuu noqday hogaamiye ciidan xilligii Cabdulmalik bin Marwaan. Xajaaj bin Yuusuf wuxuu necbaa Kaltuum, kadibna wuxuu u dhigay dabin hagareed taasoo keentay in lagu xukumo xukun dil ah. Kaltuum hooyadiis ayaa soo baxday waxayna u imaatay Cabdulmalik bin Marwaan. Waxay ka barisay in wiilkeeda uu cafiyo. Cabdulmalik bin Marwaan wuu ka xishooday hooyada 100 sano korka u dhaaftay, wuxuuna ku dhahay, waxaan leeyahay Xajaaj qor 2 warqad, mid ay ku qoran tahay dil, midna ha dilin. 2 warqad ayaan kala doorsiin doonaa wiilkaaga. Hadduu dulman yahay, Alle ayaa badbaadin doono. Hooyadii ayaa iska soo baxday ayadoo ilmeynaysa, sababtoo ah waxay ogeyd in Xajaaj uu neceb yahay wiilkeeda, 2 warqadna uu ku qori doono dil. Wiilkeedii ayaa ku dhahay, hooy ha walwalin, arrintaana aniga igu daa. Sidii la filayayba, Xajaaj 2 warqad wuxuu ku qoray hal eray oo ahaa dil. Maalinkii dambe, dadkii ayaa isku soo baxay si ay u arkaan Kaltuum waxa ku dhaca maanta. Markuu barxadda yimid, Xajaaj oo si dhagar leh ugu qoslaya ayaa ku dhahay, mid dooro. Kaltuum wuu dhoola cadeeyay, warqad ayuu qabsaday wuxuuna dhahay, kanaan doortay. Isla markiina wuu laqay warqadii. Waaligii ayaa la yaabay oo ku dhahay, maxaa u laqday warqadda anagoonan ogaanin waxa ku qoran? Kaltuum wuxuu ku jawaabay, dhib ma lahan. Warqadda aan laqay waxaa ku qoran cagsiga warqaddan hortaala. Kadib ayaa la fiiriyay warqaddii, waxaa ku qoran dil. Sidaas ayuuna ku badbaaday Kaltuum.